kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogaha dunida ee aan ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee deegal kasta. barnaamijkan waxaan ku soo gudbin doonaa Imaaraadka Carabta waxaad ku ogtahay cabsida ku riixday xiriir diblomaasiyadeed oo ay la yeelato Turkiga iyo Iiraan iyo war aan laga filayn oo ka soo baxay dalka Imaaraadka Carabta xiriirkeeda gobolka. warbixin ayaan idiin soo gudbin doonaa maxay tahay sababta Imaaraadka Carabtu ay u magan galisay madaxweynihii hore ee Afghanistan Ashraf Ghani iyo ra'iisul wasaare Roble oo digniin adag u diray ciidamada midowga Afrika ee AMISOM dhibaatada u geystaan dadka Soomaaliyeed in lagu la xisaabtami doono iyo xogo kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay inaysan aqbali doonin raallina aysan ka ahayn in shacabka Soomaaliyeed dhibaato loo geysto. ra'iisul wasaaruhu wuxuu hadalkan ka sheegay kadib markii kulan uu la qaatay safiirka dalka Uganda u fadhiya magaalada Muqdisho iyo taliyaha qaybta howlgalka ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM kuwaas oo ay ka wada hadleen si xal looga gaari lahaa dadkii AMISOM ay dhawaan ku dileen deegaano hoostaga gobolka Shabeellada Hoose. ra'iisul wasaare Roble waxa uu sheegay in xaqiiqdii dhacdadaasi ay ahayd arrin fool xun oo aad ay uga danqadeen haddii ay tahay dowladda Soomaaliya. ra'iisul wasaaraha oo ay tacsi ugu tageen safiirka Uganda ee Muqdisho iyo taliyaha AMISOM ayaa sheegay in iyagana uu sheegay shacabka Soomaaliyeedna uu sheegayo in marnaba aysan aqbali doonin raallina aysan ka ahayn shacabka Soomaaliyeed dhibaato loo geysto haddii ay tahay ciidamo AMISOM iyo haddii ay yihiin ciidamo Soomaaliyeedba. Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wuxuu intaa ku daray in shaqadiisa ay tahay shacabka Soomaaliyeed in uu dhibaatada ka ilaaliyo haddii ay wax soo gaaraan uu xaqooda u soo dhicin doono. shacabka Soomaaliyeed waa lama taabtaan oo hadda gacan ka gardaran ayaa wax u geysatay annaga diyaar ayaan u nahay inaan u istaagno waana naloo igmaday inaan xaqooda u istaagno ayuu yidhi. dhaga kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu tacsi u diray ehelada dadkii ugu waxyeeloobay dhacdada Shabeellada Hoose 10 bishan Agoosto ayay ahayd markii ay soo baxeen wararka sheegaya in 7 qof oo rayid ah isku meel ay ku dileen ciidamada AMISOM kadib markii dagaal u dhaxeeyay ciidamada Uganda ee qaybta AMISOM iyo kooxaha dagaalamayaasha oo halkaas ku dhex maray. xilligaas oo kolonyo ciidamada Uganda ah ay marayeen inta u dhaxaysa Doonow iyo Galweyn ee gobolka Shabeellada Hoose oo ay wadada u galeen dagaalamayaashu. dagaalka kadib ayaa la sheegay in ciidamada Uganda ay 5 qof oo rayid ah ay kala baxeen beer ku taala meel ku dhow halka dagaalku uu ka dhacay. sidoo kalena 2 darawal oo kale ay kala degeen baabuurtoodii oo ay wateen AMISOM. kulanka maanta ee ra'iisul wasaaraha iyo madaxda Uganda iyo AMISOM ayaa waxa uu imanayaa xilli maalmahani magaalada Muqdisho dadbaxyo ay ka dhigayeen ehelada dadka ku dhintay dhacdadaasi dadka ay dileen AMISOM. madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa toddobaadkii tagay sheegay in la xiray askartii dalkiisa ee u dhalatay ee dilkaasi geystay islamarkaana la bixin doono magta dadkii la laayay. balse ehelada dadka la laayay arrintaasi kuma qanacsanayn waxayna sheegeen inay doonayaan in magaalada Muqdisho ay AMISOM ay saldhig ugu weyn ay ku leedahay. dhaga kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa uu guddi ka koobnaa 4 xubnood oo wasiir ah uu soo saaray inay soo baadhaan dadka rayidka ahaa ee ciidamada midowga Afrika AMISOM ay ku dileen gobolka Shabeellada Hoose. dhaga kale barnaamijkan xogaha dunida dalka Imaaraadka Carabtu toddobaadyadani waxay muujisay isbedel siyaasadeed oo cajiib ah kadib markii waqti isku mid ah ay wada hadallo diblomaasiyadeed ay la furtay Soomaaliya, dalka Turkiga, Iiraan iyo dalalka kale ee gobolka ee colaadu ay kala dhaxaysay. qaar ka mid ah warbaahinta Carabta ayaa dahrogaya sababaha keenay walwalkani Imaaraadka Carabta. isbedelada siyaasadeed iyo dhaqaalaha ee dunida qabsaday sanadihii ugu dambeeyay waa mid ka mid ah qodobada ugu caansan ee Imaaraadka ku riixday hanaanka dib u xisaabinta siyaasadeeda iyo qiimeynta xiriirka iyo wada hadallada ee gobolka. waxaa laga yaabaa
in isu soo dhowaanshaha turkiga iyo imaaraadka ee dhowaan dhex maray kulankii madaxweynaha turkiga Erdogan uu la qaatay taliyaha amniga qaranka ee imaaraadka carabta Tanuun bin Said Al Nahyan uusan ahayn wax lala yaabo. kulankan kadib waxaa soo baxay bayaano rasmi ah imaaraadka carabta oo tilmaamaya siyaasado cusub ee imaaraadka uu ku dhaqmayo xiriirka caalamiga ah kadib markii xiriirka Abu Dhabi uu la lahaa wadamo dhowr ah oo Ankara ay ka mid tahay ay soo mareen marxalad cadaawad weyn leh. qoraalkii ugu dambeeyay ee rasmiga ah ee imaaraadka ka soo baxay waxaa shaaca ka qaaday taliyaha diblomaasiyadeed ee madaxweynaha imaaraadka carabta Anwar Gargash oo sheegay in Abu Dhabi hadda ay ka shaqeynayso xoojinta xiriirka qof walba, isagoo xusay in farqiga jagooyinka uusan ka hortagi doonin xoojinta xiriirka dhaqaalaha ee gobolka. Gargash ayaa Twitterka wuxuu ku qoray in dalkiisa uu ka shaqeynayo dhismaha, xoojinta iyo dib u soo celinta buddooyinka qof walba oo diblomaasiyadeed iyo wanaajinta dhaqaalaha iyo siyaasadda. wuxuu intaa ku daray kala duwanaanshaha dabeecadaha ee ku wajahan arrimaha qaarkood ma hor istaagi doonaan isgaarsiinta iyo kor u qaadista fursadaha xasiloonida, barwaaqada iyo horumarka. waxaana u soconnaa dhankani annagoo leh dheelitir adag oo lagu kalsoonaan karo ee xidhiirka caalamiga ah. Gargash ayaa goor sii horeysay sidoo kale wuxuu sheegay waxaa lagama maarmaan ah in lagu laabto aas-aaska xidhiirka labageesoodka ah ee ka jira dunida carabta ah iyo gobolka oo dhan oo ay soo mareen caqabado aan horey loo arag 10kii sano ee lasoo dhaafay. wuxuu intaa ku daray ixtiraamka madax bannaanida, faragelin la'aanta arrimaha gudaha iyo xoogga in la saaro faylasha horumarineed iyo barwaaqada ayaa ah mabaadi'da muhiimka ah si loo soo celiyo dheelitirka la rabay ee xidhiirka carabta iyo gobolka. hadalkani Gargash ayaa yimid maalin kadib markii Erdogan uu kulan la qaatay sarkaalka caanka ah ee ka socday imaaraadka carabta Tanuun bin Said oo booqday Ankara 28 Agoosto. labada dhinac waxay ka wada hadleen arrimaha guud, xoojinta xiriirka dhaqaalaha, ganacsiga iyo fursadaha maalgashiga ee dhinacyada gaadiidka, caafimaadka iyo tamarta. Erdogan wuxuu sheegay inuu rumaysan yahay in imaaraadku dhowaan uu maalgashi waaweyn ku samayn doono dalka Turkiga. waxa uu sharaxay in Turkigu uu hogaaminayo surdoonkiisu kulamo u la qaatay maamulka Abu Dhabi. falanqeeyaha siyaasadeed oo fadhigiisu yahay dalka Lubnaan Maxamuud Aloosh wuxuu ka hadlayaa jiritaanka dhaqdhaqaaqa cusub ee gobolka ee soo ifbaxay markii Biden uu xukunka qabtay, isagoo xusay in inta badani wadamada gobolka ay ku jirto imaaraadku ay raadinayaan in ay la qabsadaan firfircoonaantani iyagoo adeegsanaya dabacsanaan iyo siyaasad arrimaha dibadda ah oo dhaba oo ku wajahan xidhiirka ay leeyihiin kuwa ka soo horjeeda gobolka sida Turkiga iyo Iiraan. warshadaha Khaleej Online wuxuu rumaysan yahay in dib u gurashada Mareykanka ee gobolka iyo ka bixitaanka Afghanistan iyo Ciraaq ay ku riixayso dalalka Khaleejka inay raadiyaan siyaabo kale oo ay ku ilaashadaan danahooda marka laga reebo ku tiirsanaanta buuxda ee iskaashiga Washington. muusan la yaabin furitaanka dhowaan ee imaaraadku u fidiyey diblomaasiyadda Turkiga iyo sidoo kale furfurnaanta Sacuudiga ee wadahadallada Iiraan, isagoo intaa ku daray in gobolku uu isu bedelayo la qabsiga degdega ah ee Khaleejka ee isbedelkani. wuxuu ka hadlay sababaha kala duwanaanshaha hore ay ku dhaceen, isagoo sharaxay in tan iyo markii uu bilowday kacdoonka carabta imaaraadku ay diiradda saartay siyaasadda arrimaha dibadda si ay uga hortagto kororka islaamiyiinta siyaasadeed iyo saamaynta Turkiga iyo Iiraan ee gobolka. taasina waxay gelisay khilaaf Iiraan iyo Turkiga iyo Ikhwaan Muslimiin iyo Qatar. falanqeeyaha ee fadhigiisu yahay Lubnaan ayaa sheegay haddana Abu Dhabi waa mid muhiim u ah wax ku oolnimada Iiraan marka loo fiiriyo halista tooska ah ee ka soo horjeeda. Turkigu wuxuu ka weynaaday saamaynta Iiraan ee gobolka. waxa ugu weyn ee cabsida ay ka qabto Abu Dhabi ayaa ah islaamka siyaasiga ah. waxa uu rumaysan yahay in Abu Dhabi uu hadda haysto kaar siyaasadeed oo dibadda oo xoog leh, kaas oo ah lacag iyo maalgashi, waxayna si wax ku ool ah u adeegsatay 10kii sano ee lasoo dhaafay dhisidda shabakado ballaaran oo isbahaysi ah si kor loogu qaado saamaynta dibadda. isagoo intaa ku daray falanqeeyuhu in kaararkani ee Abu Dhabi
hadda ay u adeegsanayso sidii baraf loogu daadin lahaa dalka Turkiga oo hadda dhaqaalihiisu u baahan yahay soo kabasho iyo maalgashi oo ka yimaada Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga. waa xilli hore in la aamino in wejigani gebi ahaanba uu meesha ka saari doono haraadigii wejigii hore si ay ugu guulaystaan dadaalada cusub ee wadahadalka Ankara iyo Abu Dhabi. intaa waxaa dheer khilaafkii hore uga dhex jiray Abu Dhabi iyo Tehran ayaa dhawaan u bilowday isbedelo cusub maadaama toddobaadyadii la soo dhaafay aan goobjoog ka ahayn isbedel cusub oo labada dal ay ku dhawaaqeen inay dib u furi doonaan isgaarsiintooda iyo xiriirkooda diblomaasiyadeed. tan iyo markii wafdi ka socda Imaaraadka ay tageen Tehran si ay uga qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha mayalka adag ee dalka Iiraan Ibrahim Raisi, isbedelada ka imanaya xiriirka u dhexeeya Imaaraadka Carabta iyo Tehran ayaa u muuqda mid ku soo laabanaya jawi wanaagsan. halka madaxweynaha dalka Iiraan uu ku amaanay Imaaraadka intii uu socday kulanka isagoo ku tilmaamay inuu yahay saaxiib daacad u ah Iiraan, isagoo muujiyay taageerada uu hayo wada shaqaynta labada dal. yeelkeeda si kasta ha ahaatee rabitaanka hadda ee Abu Dhabi ay dib ugu soo celinayso xiriirkeeda Tehran iyo Ankara waxay ku soo beegmaysaa waqti ay muuqato in xiriirka diblomaasiyadeed ee Sacuudiga iyo Abu Dhabi uusan isu wanaagsanayn, taas oo ay dheer tahay isbedelada ka dhacaya Ameerika ee gobolka oo ay walaac ka qabto Abu Dhabi in aysan sii ballaarin karin dhibaatada cadowgeeda gobolka. waana sababta ku riixday Abu Dhabi in xiriir diblomaasiyadeed ay la yeelato Israa'iil, waana damaca ugu dambeeya ee Abu Dhabi ay ku noqon doonto jilaaga ugu caansan ee dalalka khaliijka. barnaamijkeena qaybtan intaan ku soo gabagabayn doonaa, qaybaha kale ayaanu idinku sii ambaqaadi doonaa xogaha kale ee dunida. nabadgelyo dunida.